waad ku timi adigii wafdi hogaaminaysan Somaliland idinkoo irir Soomaali sheegaya de Sool waa Somaliland ma laga yaabaa socdaalkiinaasi inuu dadka reer Somaliland uu si kala fogeeyo niyo waxa weeye wax si kala fogeynaya male dadka Sool iyo Sanaag dega ama Laascaanood dega waa dad Soomaaliyeed dhaqan aan isku nahay dhiig baan isku nahay abti adeer baan isku nahay garaadyadooda inta fiyo waa la hadalnay waxaan wadna way ogyihiin nabad inay tahay midna biyo kama dhibcaan weeye oo nin walba og ama Laascaanood u dhasho ama Somaliland u dhasho ama Soomaaliya ha aado ama beesha caalamka ha ahaato Sool iyo magaalada Laascaanood waa dhul kamid ah Somaliland taa kan ninka bixi kara male caalamkii u registeraysan tahay Muuse bixi baan bixi karin Xasan Sheekh Maxamuud baan bixi karin Puntland baan awoodin garaad baan bixi karin dadku wax dawladooda Somaliland way ka tabakaraan annaguna waxaan rabnaa dadkaasi inay u wada hadlaan Somaliland ayagoo ah iyo shacab iyo dawlad arintaasna madaxweyne Muuse Bixi wuu soo dhaweeyay wuxuu yiri shacabka Somaliland waa soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol waa shacabkayga waxay tabanayaana waan ka tiraya madaxweynaha doorkiisa waa qaatay dadka degan Laascaanood boqolkiiba 70 madaxweynahooda way raacsan waxa cadeynaya shirkadda haaska joogta ma gudoomiyihii baarlamaanka xigeenkiisa jooga xildhibaanaan jooga la kulmay dawladooda way dhisantahay way raacsan yihiin nidaamkooda yaqaaniin xogaa dadkaas kacsanna maanta way arkeen runtii iyo beentii way u kala cadaatay dadka barakacana ha ku soo noqdaan Laascaanood si nabad ah ugu soo noqdaan dagaalka la joojiyo waxa ugu baaqaya dagaalkii la joojiyo dagaalka waxa laga rabaa shacabka inay joojiyaan garaadka la rabaa inuu laga joojiyo inuu Ilaahay ugu dhawaado la rabaa intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacantana Allah u boogadhayo anigu marnaba ma doonayo hal wiilo Laascaano ah inay xabad ku dhacdo ciidamada Somaliland waxay u dhaarteen ciidda iyo calanka Somaliland ina lagu soo xadgudbin cidii ku soo xadgudubtana hadda shaqay ka qabanaya daawade dhaqanka Soomaalida lagu ma yaqaano nin dhaqan isku sheegay ama suldaan sheegtay oo haddana dad shacab u hanjabayo isla markaana dadkaasi ay sheeganayaan danuubyo badan oo kala gidisan oo ay ka qabaan maamulka Somaliland hadday tahay awood qaybsi iyo sidoo kale dad badan oo aad iyo aad u fara badan oo waxgalkoodii ahaa deegaamadaasi oo la sheegay in si dhagari ku jirto loo laayay isla markaana aan la caday karin cidda dishay oo ka dambaysay loona soo qaban dad loona aanan weliba maxkamadayn dadkaas oo gaaraya 100 qofood ma isleedahay Suldaan Hooley wuxuu ka talinayaa aayaha iyo nabadgelyada deegaamada Sool Sanaag iyo Cayn iyo sidoo kale deegaamada Somaliland